maanta howlka dowladda hoose ee magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal laga daafuray munaasabad lagu wacyigelinayo oo lagu barayo bulshada ku dhaqan gobolka Awdal dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland. munaasabadani kooban ee ka qabsoontay howlka dowladda hoose ee degmada Boorama ayaa waxa goobjoog ka ah wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland, agaasimaha wasaaraddaasi, la taliyaha dhinaca arrimaha bulshada ee madaxweynaha Soomaaliland, maamulka gobolka ee ka degmada Boorama, isuduwayaasha laamaha dowladda ee gobolka Awdal iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. ugu horeyn ujeedka munaasabadaas ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland, wasiirkii hore ee xiriirka golayaasha Soomaaliland Cali Xaamud Jibriil, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sharaf weyn baynu wataan maanta halkan joogno howlka dowladda hoose ee magaalada Boorame annagoo wadna barnaamijka wacyigelinta iyo barashada dastuurka oo ka mid ah barnaamijyada waaweyn ay ku howlan tahay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka si shacabka Soomaaliland meel ay joogaan loo gaarsiiyo fahamka iyo barashada dastuurka. waxaan wadnaa dastuurka kooban 100 qodob 400 farqadood 5 jabtar iyo xubno fara dastuurkaas waxyaabaha ugu waaweyn oo ka hadla waxaa ka mid ah tilmaamaha guud ee qaranka oo ka mid ah astaanta qaranka oo ka mid yahay calanku oo ka mid yahay heesta qaranka ka mid tahay وكان مبادئ الوجود ولاية كبدل كدستورك waxa wax ka bedeli karaayeen ku qoran yahay hadda khilaafa dastuurka qodobka 126 waa wax ka bedelka dastuurka qodobkaas wuxuu dhigayaa laba qof oo wax ka bedeli kara dastuurka sasha uu dhigayo mid waa madaxweynaha oo golihiisa wasiirada hordhiga oo ka ansixiya oo gudbiya baarlamaanka oo waxaas ka bedelaya midna waa baarlamaanka oo xubnihiisa meesha fadhiyay saddex meelood hal meel ay soo jeediyaan. geesi kale waxaa munaasabadaasi ka hadlay maamulka gobolka iyo ka degmada Boorama iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Salaal, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa dastuurku iyo dastuuranaade dastuurku waa superior law of the country waa sharci ugu sareeya wadanka ama waa dastuurku waa waxa ugu sareeya ee sharciyana ee lagu kala socdo wadanka ugu sareeya waxaan leeyahay shuruucda inuu ugu simaado taasoo qasabayna baarno runtii waxaan naga daahday sida caadiga oo hadda wasiirku noo sheegay in hadda ka horba la qoro civic education ama waxa la patriotic ama wadaninimo in lagu barto arday oo barto markuu sadreed gaara oo si gartaba was right was wrong maxaa khalada maxaa saxa fiirtigaas wuxuu keenayaa in la fahmo wax badan oo mugdi laga jiro kow talaabo kasta oo la qaadayo sida ka cad ama xaraf kasta oo wax ka bedel lagu sameeyo waxa la tixraacayaa waa dastuurka waxa kale oo isla ognahay sharci kasta ama qodob kasta oo la taabanaya waxa laga deeganayaa waa dastuurka wuxuu salka ku hayaa waa dastuurka hadda saddex firqo ayaa halkaa yaalay waxay ahayd inta uu ka kooban yahay qodobadiisa firqooyinkiisa firqaduna waxay ka imanaysaa qodobadaas ayay sii sharaxaysaa iyaduna haddii maanta aynaan garanaynin xuquuqda maxamed abshideey muwaadinku xuquuqda uu leeyahay haddii aynaan garanayn dawladna ku xadgudbayna qodob yar oo kooban oo macna ku kooban saddex kalmadood ka kooban oo ah horta dastuurku maanta waxa ku faraxsanahay wasiirka iyo wasaaradda inuu hagaajiyay waqti munaasib ah oo loo baahnaa inuu soo bandhigay wuxuu dawo ka yahay qabyaaladda ninka dastuurka akhristaay wuxuu garan karaa wuxuu xaq u leeyahay wuxuu qabiil ku doonayay ama hay ku raadinayay taa waa fariin soo jeediyo waxa la yiraahdaa dastuurka alla akhriyo xuquuqda aad leedihiin in waxa ku xiran tahay dastuurkaas in wuxuu dastuurkuna waxa la yiraahdaa dimuqraadiyadda ama dastuurka ka hadlaynaay waxba ma aha dastuurka haduusan diin lahayn ilaahay ummad muslimin laga dhigay diinta hadeedana wali dastuurka waxa la yidhi taray dambeyntii waxaa madashaasi ka hadlay la taliyaha dhinaca arrimaha bulshada ee madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi iyo wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland, waxaana ku dheeraadeen muhiimadda uu leeyahay bulshada Soomaaliland barashada dastuurkooda, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa dastuurkani wuxuu ka yimi oo ka soo bilaabmay ama asaas u ahaa warshadweynihii magaalada Boorame ee beelaha Soomaaliland lagu qabtay 1990kii bishii January ilaa May taasirkii ama xilqarameedkii ka soo unkamay ee ka soo aasaasmay ayaa lagu bedelay markii shirweynihii beelaha ee 1997kii
قضية سجاش كان كسر مقطعي وتيادي كسر على جولها وكيلها يعني خبير السوداني يبدأ من حكام مجاعبين دستور دي أساس اللي هي من السوداني كاسات دستور نقضي لا مركز دم يفتلوا قاضي مركز دم جولها وكيلها وحكبدل يكابد كسبيه دستور كيف كنت سida loo sheegay koow horta waxa weeyaan waa sharciga ugu sareeyay dalka leeyahay markaynu ka reebno sharcigeena samawiga Ilaahay oo soo dejiyay oo ay iswaafaqayaan hay'adda qodobka shanaad ee dastuurkeedu wuxuu sheegayaa wax alla wixii 130 ka qodob aan waafaqsanayn shariicada islaamka oo waa wax kama jiraan sidaa daraadeed wuxuu waafaqsan yahay diinteena waayo waxa guddiga u ahaa oo ku hawsanaday وهكذا سنجد فرقا إلا حتى لو فكري مراحل بدن بصبر وكمان واحد كلمات بمرها سكريا سحنة ريا تي في بورما.